lacagtu ma hayno waa lacagtu waxa nagu xidhay dhakhtarka ciidamada haysta talaagada geliyay ayaan qaybta ayaa nagu xidhay marka ma hayno lacagtaasina hadda nooma diyaarsana marka waraaqana nooma goona marka waxaanu jecelahay dee sidii ma garanaysaa dee naloogu soo gurman lahaa aad iyo aad ayaan jeclaysataa waxa weeye maamulaha dhakhtarka ayaa naga haysta cid kale oo maamulaha cisbitaalka marka cid kale oo isku haysata iyo wax kale mushkilad oo ka taagan meesha ma jirto marka lacagtii aan ka bixin lahayn ama ma garanaysaa dee ma hayno sida waxay ahayd masiibo dabiici uma nagu dhacday dee roobka da'ay oo darabo iyo dee hawlo watay iyo dabaylo kaasoo dee sababay in dee dadna dhinto qaar dhaawacmaan waxa ku dhintay dee xaaska iyo Ruu Yaasin Xasana inantuna waa dhaawac inanna waa dhaawac guriguna waa shalay casarkii baa marka meelahan adana baa meelahan ku dhacay oo uura isku xidhay aagaba dabayl guriga kala fara badan oo dee dilaaco shabay buu jiraan laakiin dee cid baan ku dhiman guriyaha gabadhu waxay tagtay laba qof inan iyo inan waxa weeyaan shilka halka ka dhacay waa arkaysan wariyayaashow shalay 3 markay ahayd ayaa roobkaasina hela magaalada doonta mooye dad ma dhiman laakiin dhir iyo xoolaba way madheen maxay tahay bilaaska noo yimay maydka meesha nooga qaadayna way ku mahadsan yihiin waxaanu leenahay burco ayaan daran baa la yidhaahaa iyadaana maxay tidhahay marka Somaliland laga hadlo uguna dhaqdhaqaaq roon uguna dhiig roon waanu gaabsanay ma cabano beer waa ogtihiin oo biyaha qaaday dadka raashinkii wuu ka qaaday aqaladii way dumeen ma hadlayno waanu iska aamusnay maanta waxaanu ognahay dawladdu nooma iman taynaanan madaxweynena aanan lahayn wasiirana lahayn maydkeegii baa naloo diiday lacag keena baa la 500 agaasime male meeshu dee caafimaadna dee male dhakhtarku keena baa la cashuurta maydka gowraca miyaa la dilay maxay tahay gurigeedii baa ku dumay hantideedii ilaahay baa qoray ilaahay ma lama diidayo golihii deegaanka kuwii aanu dooranay xataa aanay noo imanin xataa kuwii deegaanka nooma iman oo muxuu ahaa badha saabkii nooma iman oo maamulkii gobolka nooma iman ilaa shalay wuxuu baa nagu wareegayo in yaro booliis iyaguna meydkii qaado oo noo geeyay muxuu ahaa waarka noo geeyay khasaarahaas gurigan waxa ku noolaa qoys baa ku noolaa islaan iyo inan ay dhashay iyo odaygeeda waxay ahaayeen 4 qof bay ahaayeen islaantii way dhimatay inantiina waa dhaawac oo hadda way jiiftaa odaygina waa kan inankina laakiin inanku waa caafimaad qaba ilaahay mahadii dhibaabo weyn baa ka dhacay dhibaabo aad iyo aad u weyn baa ka dhacay wax gurmudoo yimina ma jiraan guryo far badan baa dumay geedheer baa dumay dad baa ku dhintay dad baa dhaawaca waxa la wax dawladda ka soo war heleena ma jiro saaka booliiska yimaadeen shaleeto meydkii bay qaadeenay cidda ma ku soo noqotayna ma jirto maamul degmo iyo maamul gobol midnimo iman baa leeyahay wasi lagu yiri meeshina waa taas wadarka sanada guriyada duunsanaa iyo wixii marka waxaanu la codsanaynaa in dadkan gurbada la soo gaar dad baa waran oo guryahooda wada dumeen oo dawladda wada waran way gurbad degdeg la soo gaar dadka dawladda la soo gaar qoyska iyo qaraabadiiba ilaahay halkii uu aanu maanta ka aasan lahayn ka diyaar garoobi lahayn uga ducayn lahayn waa nalaga xilibay ta koobaad ta labaad waxa weeyaan waxa xanibtay dadka naga qaatay meydkii ee naga dhigtay meel ee waliba lacagta doonaya ayaa naga xanibtay dawladii hoose ma hayno badha saabkii ma hayno meydkayagiina waa maqayo lama aasinana halkii baanu tubanahay ruun maydkeedii waxaanu doonaynaa in aanu aasano oo nala siiyo oo aan laga huursana nala siiyo ila gurigeedii xaq ahaaba ku dumay loo dhisayay geesta kalena agaasimaha cusbitaalka weyn ee magaalada Burco Dr. Cabdi Suudi ayaa arintaasi ka jawaabay magaalada Burco ee roobkii shalgalkii dambe ka daay guri ku soo dumay waana loo keenay galkii dambe ciidanka bilayska noo keenay talaagadan u galinay walina talaagadii ku jirtaa runtii qofku markuu ciidanka bilaysku keeno warqad mid baaris ayay soo qortaa waaxda baarista ciidanka bilaysku oo sifo sharci ah martaa kadibna cisbitaalku warqadda dambe baaristu ka jawaaba markaasna ehlada loo ogol yahay inay maxay hayday meydka qaataan marka ma jirto meyd lagu xidhay saaka way yimaadeen anigu ma joogin maamulka cisbitaalka uu joogay cabdirashiid imka arag taagan baa joogay waxa lagu yiri warqadiisa ay dhidana soo gaarine meydkii la idin siin maayo markay si ay dhiido warqadda ay soo gaadho ee aanu ka jawaabno markaas sharciga ogol yahay in la aaso marka